kuwaasoo safarka iyo baabuurkii gaadiidka nooca dhibaato weyn ku qabeen markii cabashada shacabka ugu badatay ayaan waxaan go'aansanay in aan inta tabarteena shaqo ka qabanno sidaad arkaysiin waxaan keennay matooro biyo oo biyo bixiyaan iyo aan rabno in aan carrabiyo isku samayno carragaawo iyo dhagax in aan ku shubno meelaha dadka oo aad iyo aad u dhibaya baabuurta iyo safarka ay dhibaatada ku qabaan marka sidaas awgeed waxaan samaynaynaa waa dhiig joojin wax oo ma ahan joogto noqon kara ma ahan laakiin waxaan rabnaa in dhiig joojintaas aan samayno waxaan kaloo codsanaynaa in ay qayb nagala qaataan dadka ganacsatada Soomaaliyeed oo muxuu ahay khayrka jecel in ay ajirkan ka qayb qaataan maadaama ay tahay wadada in la sameeyo oo masaafada loo fududeeyo ajir badan ay tahay bil Ramadaano kulli badan lagu jiro in ay ajirkaas ka qayb qaataan ganacsatada Soomaaliyeed khaasatan kuwa shabeellada dhexe in ay gurmad u sameeyaan wadooyinka qaybaha aad iyo aad biyaha ay u dhibaateeyaan baabuurta iyo safarkan ay dhib ku qabaan waxaan rajaynaynaa in ay ganacsatada nagala qayb qaataan waxaan rajaynaynaa in ay dawladda dhexe ay nagala qayb qaadato ay nagu kaalmayso waxaan rajaynaynaa hay'adaha samafalka iyo naftooda in ay qayb ka qaataan dhibaatadan in ay nala xalliyaan waxayna u baahan tahay dhagax carragaawo markasta oo ku shubma meeshii sideedii u soo qodmaysaa waa sii qodmaysaa mar walba wax joogto laga kale waxaan isu sheegnay inay tahay dhagax marka dhagaxaas jaygaas si loo heli lahay oo loogu qurba loogu buuxi lahay in qayb waxa nagala sii garab nagala siiyaan aan codsanaynaa annagana haddaan nahay maamulka degmada iyo kan gobolkaba waxaan iska kaalmaysanaynaa hadda isku wada jirnaa oo ka shaqaynaynaa sida hadda biyahan aan ugu bixinay si ay safarka ay ugu fududaataa maritaanka wadada isku gudbinta maadaama ay wadadan tahay wadda halbowla oo isku xirta gobollada dhexe iyo muqdisho isku xirta. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.